السلام عليكم. cashirkeena wuxuu ku saabsan waaday indices tusaalaha saddexaad adaa ka soo qaadanaynaa kaasa marka hadda ka shaqeyno waxay ka bilaabanaya square root lagu dhuftay laba dul saaran xididka 5 ahaan aga saare 10 lagu dhuftay 10 taas waxay la mid tahay waa fududeynaa sida caadi ahaanta x square lagu dhuftay square hal loo qaybiyo 4 10 lagu dhuftay 10 intan waxay noqon hal loo qaybiyo 5 marka saan noqoto marka sii socoto taasi waxay la mid tahay exponentiga isku dhufayna maadaama ku dhufasho inta taalo waxa xaq u leenahay inaan sameeyno x lagu dhuftay hal loo qaybiyo 4 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay hal loo qaybiyo 4 waxaan u qaybinaynaa x 10 hal loo qaybiyay 5 lagu dhuftay 10 hal loo qaybiyay 5 markay saas noqoto muhiimadda inay xisaabta qurxoonaato markaan ka shaqeynaysid taasi waxay la mid tahay jawaabteena la qoranaynaa haddii aad isku dhufatid 2 lagu dhuftay hal loo qaybiyay 4 taasi waxay la mid tahay x hal loo qaybiyo 2 lagu dhuftay hal loo qaybiyo 2 loo qaybiyay 10 hadda 5 u qaybisid waa 2 x square lagu dhuftay square jawaabta waxay noqon doontaa x eber dhibic 5 laga jaro 2 lagu dhuftay eber dhibic 5 laga jaro 2 jawaabteenu x laga jaray 1.5 lagu dhuftay laga jaray 1.5 taasi oo la mid waxaan dhihi karnaa taasi oo la mid saa u fahantiin x negative 3 loo qaybiyo 2 lagu dhuftay negative 3 loo qaybiyo 2 waxay la sii mid tahay hal square root lagu dhuftay haddana saas sida ogtihiin taas waxay la sii mid noqon kartaa ama la mid tahay hal loo qaybiyay square root x square lagu dhuftay square ma jawaabteena saasay noqotay all right marka example-keena labaadaan fiiriheena example-keena labaada kana okay taasi waxay la mid tahay kama fududeheena x negative 3 lagu dhuftay oo 4 kor dhigan lagu dhuftay marka hadda tan waa 2 inta waxaa ku qoran negative 2 loo qaybiyay 3 tan waxaa noqon x negative 2 loo qaybiyay 3 hal loo qaybiyaa
laba la kordhiga waxaa ku dhufanaa negative 4 hal loo qeybiyo 4 waa sii wadeena marka maadaama laba exponent is dul saaran tahay waa inaan isku dhufano marka x negative 2 loo qeybiyo 3 lagu dhuftay hal loo qeybiyo 2 lagu dhuftay ya negative 4 lagu dhuftay hal loo qeybiyo 4 x oo negative 3 yahay ama laga jaro 3 ama tiro 10 ee tahay af Soomaali ahaan negative waa markay tirada 10 tahay marka ku dhufano x negative 3 lagu dhuftay oo 4 ah marka labadan tiro isku baxayaan iyo labadan isku baxayaan soo marka taas waxay la mid tahay x negative hal loo qeybiyo 3 lagu dhuftay negative hal soma marka shaqada saas marayso taasi waxay la mid tahay x negative 3 laga jaro hal loo qeybiyo 3 soma lagu dhuftay 4 oo khalada sameeyay ina inta plus noqoto sababtoo tahay xaggaas negative markay kor imaato tan markay korkaas tagto positive noqon ama tiro togan tiro positive noqon okay marka jajabka waa ka seesin sida looga shaqeeyo say la tahay hadana ka seen videoga hoos waa igu sheegi kartiin taasi waxay la sii mid noqon kartaa x maadaama inta hal dhiganaysid 3 kor iyo isku dhufane marka jajab ahaan waxay noqon negative 8 loo qeybiyo 3 lagu dhuftay iyo kor dhiga 5 taasi waxay la mid tahay anoo wax guduud ku qoraa okay color guduud taasi waxay la mid tahay x 8 loo qeybiyo 3 iyo ya loo qeybiyo ya la kor dhiga 3 ya la kor dhiga 5 okay marka haddii aan sii wado taasi waxay la sii mid tahay ya oo 5 kor dhigan loo qeybiyay xididku 3 yahay x is determined marka ha iloobin inaad videoga subscribe like and share dhaadid dadkan u sii gudbis waxa aan ka fahmin videogan ay la wadaagtid insha Allah khalaas ku